bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba khiyaarta sharafta lahay halkani waa dhexnimo media kuna soo dhawaada googooska wararka dhexnimo qodobada toddobaadkan ugu waaweynana waxa kamid ah Kenya iyo Soomaaliya oo mar kale dib u heshiiyay boqorka Sacuudiga oo carruurtiisa qaar kamid ah xilal ku tahay haweeney 9 carruur ah umushay mar qura dalka Chad oo loo dhisay dawlad ku meel gaar ah kadib dilkii madaxweynihii dalkaasi Sacuudiga oo markab xoolaha dib ugu celiyay dekada Boorto Suudaan wasiirka arrimaha dibadda Iran oo sira badan ka shifay madaxweynaha Soomaaliland oo la kulmay wafdi ka socday dawladda Qatar qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayay ku maqli doontaan daawadayaasha sharafta lahow waa maalinimo Jimco ah bisha May tahay 7 Ramadaan anigoo ah Cabdiraxmaan Rashiid Dalmar ayaa idin la socodsiin doona ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan boqorka Sacuudi Carabiya Salman bin Abdul Aziz ayaa magacaabay wasiirka cusub ee dhaqaalaha halka wiilka ugu weyn carruurtiisana uu magacaabay la taliyaha gaarka ah ee boqor Salman ayaa wasiirka dhaqaalaha iyo qorsheynta u doortay Faisal Al Ibrahim oo hore u ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda xilkaas uu hayay tan iyo horaantii 2018 Al Ibrahim ayaa sidoo kale hore xilal uga soo qabtay shirkadda shidaalka ee dalkaasi Aramco iyo golaha arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Sacuudi Carabiya wasiirka maaliyadda Maxamed Al Jandani ayaa ahaa siyahayaha xilkaasi wasiirka dhaqaalaha tan iyo sanadkii tagay markii la bedelay wasiirka dhaqaalaha tikreeto kale oo ay daabacday warbaahinta dawladda ayaa boqor Salman waxa uu Amiir Sultan bin Salman ugu magacaabay la taliyaha gaarka ah ee aabihiis amiirka ayaa hore madax uga ahaa maamulka hawada sare ee Sacuudiga isagoo cuskaday khibradiisa ah inuu ahaa cirbixiyeenkii ugu horeeyay ee Carbeed ee taga hawada sare sanadkii 1985 maamulka hawada sare waxa loo magacaabay inuu hogaamiyo Abdullah Al Sawah oo sidoo kale ah wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Sacuudi Carabiya Iman Al Madahira ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka ganacsiga iyadoo noqotay haweeneydii ugu horeysay ee xilkaasi ka qabata Sacuudi Carabiya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo maanta soo gaadhay magaalada Hargeysa kaas oo ka socda dalka Qatar waxaana hogaaminayay ergeyga gaarka ah ee ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dalka Qatar Dr. Mutaliq bin Majid Al Qahdani qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa lagu sheegay ugu horeyn madaxweynaha Soomaaliland ayaa warbixin dheer ka siiyay wafdiga xaaladda guud ee Soomaaliland halka laga soo ambaqaaday geediga dimuqraadiyadda muddo 30 sano ah isla markaana waxa uu ka guddoomay ay wasideen madaxda dalka Qatar sidoo kale kulanka ayaa waxa looga wada hadlay sidii dawladda Qatar iyo Soomaaliland ay xiriir wanaagsan oo walaaltinimo iyo iskaashi ku dhisan ay u yeelan lahaayeen in dawladda Qatar ay xafiis diblomaasiyadeed oo rasmi ah ku yeelato dalka Soomaaliland sidoo kale waxa laga wada hadlay sidii hay'adda Qatar u qaabilsan mucaawinooyinka Qatar Charity ay xafiis uga furan lahayd Soomaaliland loona xoojin lahaa xiriirka wada shaqeyneed ee dhinacyada mucaawinooyinka iyo samafalka wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa hadda maanta caafis weydiistay qoyska Qaasim Suleymani kadib markii warbaahinta loo dusiyay codsi oo ku sheegay in taliyihii la dilay uu door weyn ku ciyaari jiray arrimaha diblomaasiyadda Suleymani oo ahaa taliyihii qaybta howlgallada dibadda ee ciidamada ilaalada kacaanka ayaa lagu dilay duqay xirka oo sanadkii hore Mareykanku ka fuliyay dalka Ciraaq warbaahinta ka howlgasha dalalka ka baxsan Iran ayaa xadii hore baahiyay cajalad maqal oo muddo 3 saac soconaysa oo lagu duubay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Jafar Sariif taas oo dhalisay ka hor doorashada madaxtinimada iyo xilli Iran wada hadal lagu soo nooleynayo heshiiska nukliyeerka magaalada Vienna kula leedahay quwadaha dunida cajalada maqalka ayuu Sariif kaga hadlay militarigu inay saameyn badan ku leeyihiin diblomaasiyadda waxaana xusi doorka muuqda ee ku ciyaaray Qaasim Suleymani Sariif ayaa dhaleecayn kala kulmay siyaasiyiinta muxaafidka iyo warbaahinta kadib markii codkaasi loo dusiyay iyo hadalhaynta Suleymani ay kuwa aad looga cadhooday haddii aan ogaan lahaa in eray kamida meel fagaara laga sheegayo ma sheegeen ayuu yiri Sariif hadalkayga ma yareynaya meeqaamka iyo doorka aan la bedeli karin ee Shahiid Suleymani ayuu boggiisa Instagram ku soo qoray wasiir Sariif
wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa ka hadashay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed labada dal Kenya iyo Soomaaliya oo ay dawladda Soomaaliya ku dhawaaqday maanta. War ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay tahay mid horumarin ah oo ay diyaar u tahay inay sii wado xiriirka caadiga ah oo ay ka mid yihiin arrimaha ganacsiga, isgaarsiinta, gaadiidka, xiriirka dadka, isdhaafsiga dhaqanka iyo wixii la mid ah. Dawladda Kenya ayaa uga mahadcelisay dawladda Qatar dadaalka ay u gashay in xiriirka labada dal uu dib u soo laabto. Wasaaradda arrimaha dibadda waxay qiraysaa taageerada joogtada ah oo ay ka heshay beesha caalamka gaar ahaan dawladda Qatar dadaalada lagu doonayo in lagu hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya. Dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday wax yar kadib markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ka helay dhambaal Amir Al-Thani oo loo soo mariyay ergeyga gaarka ah Mutlaq bin Majid Al-Qahdani. boqorka Sacuudi Carabiya Salman bin Abdul Aziz ayaa magacaabay wasiirka cusub ee dhaqaalaha halka wiilka ugu weyn caruurtiisana uu magacaabay la taliyaha gaarka ah ee boqor Salman ayaa wasiirka dhaqaalaha iyo qorsheynta u doortay Faisal Al Ibrahim oo hore u ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda xilkaas uu hayay tan iyo horaantii 2018. Al Ibrahim ayaa sidoo kale hore xilal uga soo qabtay shirkadda shidaalka ee dalkaasi Aramco iyo golaha arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Sacuudi Carabiya. wasiirka maaliyadda Maxamed Al Jandani ayaa ahaa si hayaha xilkaasi wasiirka dhaqaalaha tan iyo sanadkii tagay markii la bedelay wasiirka dhaqaalaha. Tikreeto kale oo ay daabacday warbaahinta dawladda ayaa boqor Salman waxa uu Amiir Sultan bin Salman ugu magacaabay la taliyaha gaarka ah ee aabihiis. Amiirka ayaa hore madax uga ahaa maamulka hawada sare ee Sacuudiga isagoo cuskaday khibradiisa ah inuu ahaa cirbixiyeenkii ugu horeeyay ee Carbeed ee taga hawada sare sanadkii 1985. maamulka hawada sare waxaa loo magacaabay inuu hogaamiyo Abdullaahi Al Sawah oo sidoo kale ah wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Sacuudi Carabiya. Imaan Al Madahir ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka ganacsiga iyadoo noqotay haweeneydii ugu horeysay ee xilkaasi ka qabata Sacuudi Carabiya. haweeney 25 sano jir ah oo u dhalatay dalka Maali ayaa isbitaal ku yaala dalka Morocco mar qura ku umushay 9 caruur ah waxaana dhacdadan ay noqotay mid hadalhayn badan ka abuurtay daafaha dunida. Xaliima Ciise oo 25 sano jir ayaa hore baaritaan loogu sameeyay lagu ogaaday inay wado 7 caruur ah balse markii dambe dhashay 9 caruur ah oo isugu jira 5 gabdhood iyo 4 wiil. dhakhaatiirta isbitaalka ku yaala dalka Morocco ayaa hooyadan qaab qaliin uga soo saaray caruurta waxaana dhakhaatiirtani sheegeen in hooyada iyo caruurteeduba xaaladooda ay fiican yihiin. wasiirka caafimaadka ee Maali Fantasy ayaa warbaahinta u sheegtay in dawladdu ay gacan ka geysanayso sidii hooyadan loola socon lahaa xaaladeeda caafimaad iyo caruurteedaba waxaana xustay inay haatan xaaladeedu ay fiican tahay. warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa hadalhayn badan ka abuurtay hooyada nasiibka badan ee mar qura dhashay 9 caruur ah waxaanay dadku siyaabo kala duwan uga hadleen sheekada hooyadan caruurta badan mar qura umushay. markabka xamuulka ee lagu magacaabo MV Mabruuq oo shirkad xoogaageeyay dekedda magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga ayaa dib ugu laabtay dekedda Boorto Suudaan ee dalka Suudaan. warbaahinta Suudaan ayaa sheegtay in markabkaasi waday 7228 neef oo id ah iyo 114 neef oo geel ah. hadal ka soo baxay wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka Sacuudiga ayaa lagu sheegay in xoolahaasi ay ka heleen xanuunka qandhada ee Rift Valley Fever kadib markii muunada dhiig oo laga qaaday laga baaray shaybaadhka. waa markii ugu horeysay shirkad xoolaha oo la geeyay Sacuudiga dib loogu soo celiyay dalka Suudaan oo ah dalkii laga soo raray xoolahaasi. hogaamiyaha golaha militariga Chad Maxamed Idris Deby ayaa ku dhawaaqay xukuumad ku meel gaar ah oo ka kooban ilaa 40 wasiir iyo xogayaha dawladda. golaha wasiirada waxaa ku jira wasiirka arrimaha nabadeynta Chad Maxamed ayaa ballan qaaday muddo 18 bil gudaheed ah in doorasho lagu qaban doono wadankaasi kadib dilkii aabihiis ee bishii Abriil lagu dilay wadankaasi. fallaagada ayaana weli ku adkaysanaysa inay sii wadi doonto dagaalka ay kula jiraan. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay in dhaqaale yari soo wajahday dawladda federaalka kadib markii beesha caalamku ay ka joojiyeen dhaqaalihii ay siin jireen. wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka hadlay kulan khadka suunka ayaa waxa uu sheegay in lacagii lagu kabi jiray miisaaniyadda dawladda laga joojiyay wixii ka dambeeyay bishii Agoosto ee sanadkii 2020 ayna soo wajahday dhaqaale xumi. waxa uu sheegay wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle in lacagii ay hore u siiyeen dawladaha Qatar iyo Sacuudiga ay haatan dawladda federaalku ku bixiso mushaaraadka isla markaa lacagahaasina iyaguna ay gabagaba yihiin. lacagii kabka ahaa ee dunida sanadkii hore ayaana laga joojiyay waxoogaa Sacuudiga iyo Qatar la siiyanayaan mushaarka ku bixinay iyaguna way dhamaadeen. haatan waxaan taaganahay sagxadda wariga ku soo dhamaatay
marka maanta sagxadda ayaa runtii waa in Soomaalidu isku tashato ay dalkan yeelato ayuu yidhi wasiir Bayle isagoo sii hadlayay wasiirka maaliyadda xukuumadda Farmaajo ayaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay taageero dhaqaale siiyaan dowladda maadaama ay soo wajahday dhaqaale xumitii ugu darnayd dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya ayaa sheegay in dhaqaale xumida haysata dowladda ay ka timid kadib markii khilaaf ka dhex bilowday beesha caalamka iyo dowladda federaalka kaas oo salka ku haya riditaankii xukuumaddii hore ee Xasan Cali Khayre